culimaawidiinka xeryaha Dadaab ayaa markii ugu horeysay ka hadlay saameynta xanuunka coronavirus iyagoo sheegay inay xidheen dhammaanba goobihii waxbarashada iyo sidoo kale goobihii cibaadada iyagoo fulinaya awaamirta dawladda dalkan Kenya balse waxay walaaca ka muujiyeen in ubadkii iyo carruurtii laga fasaxay dugsiyada madaarista iyo iskuulada ay haatan fursad u heleen inay u bambaxaan ciyaarta kubadda cagta ayna buux dhaafiyeen goobaha garoomaha loona baahan yahay in dawladda Kenya ay hoos u eegto arrintaas si loo yareeyo bay yiraahdeen cabsida xanuunkan saameynta wanaagsan ku yeeshay caalamka kolba dawladdu xal bay u aragtay arrinkaas kaligeedna ma adduunka daafihiisa ay ka jirtaa xiridaas masaajida la xiray ee goobihii kala duwanaa ama iskuulada ahaa ama dugsiyada ahaa marka saameynta ugu yeelataa waxay tahay marka masaajidadii in la xiray waxaanunkaas saameyntu ugu yeeshay kamid tahay asoo hadda wali una soo gaarin oo laga sheegin meelahan deganahay goobaha waxbarashada diini haday tahay maadi haday tahay dugsi haday tahay kitaab la akhrinay haday tahay kulli waa wada xiran yihiin wabitaali haddana ilmihii xabsiga lagu hayay oo dugsiyada iyo iskuulada lagu waardiyeynay haddana garoomihii meel laga maray ma leh ومع ذلك الدولة أمريكا يسوي صباح سويحية إما لها اجتماع سقيماتك لا دور ولا إلى أن نسوي إيمان كرين تأمريكا الدولة وحنقع السنة إن جرامه لفظه اللي حدده وحكي استوى سوي إيمان كرا نوع كاستعيال كلا دوجن بسوي إيمان كرا مركا هالكائن اللي حدده واع السنة هدي لكرال النقضه أمريكا الدولة واقع المساجد ولا حري وحريين وبالتالي حق برشدة وحنقول الدار من إلهي عبسيدي سبحانه وتعالى إن إلهي تلسارتان إلهينا بريان ننتقطروا هذا المقلة يوله يعني نقفك هدي ولول كيس يأوبة حنون كان ولول وكول وليو أقول ديس جرب بايران عذر كانوا دفاع وإنه يسنو يرانين بالغيابة مركا ولول كقفك إنه يسكر دورنا وأقولت لنا محايا لله سبحانه وتعالى قرآن كيس وحكوله ياي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحاتر هذا النبي محمد إنما أصيبه إلا إلهي وحنا نقرأ مويه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل إلهي ومولاها نجى مؤمنين إلهي وبعد والله ليال باشار سوون مد وبيت الله أهل السنة والجماعة بيتك حقرير ويجي حقرير أهل السنة والجماعة إله أول إلهي أنك يا ابنه إلهي أنك يا ابنه سيدي سبا سومالي هدي سوالي واسكا هذا بلادن تاي وحالي أمور قصد كاليدها لغا هلا قبيل لما دخل لوغا تغابا ليلي دبك إلهي بان نقد القاضي كرا الله نقد القاضو ميلان جوغلو محمدي معتي ميلان جوغلو الله نقد القاضو وليسك النصارى الله نقد القاضو إن شاء الله أمرك صوبحي دولة سبعا وضاعا وانا ضيعني سمعنا وضعنا وانا اسكعد أمرك لكن waxaa inta ay tabataa lagu nasaameeyay diintii buu naga saameeyay madasooyinku naga saameeyay iskuulada meel kasta buu naga saameeyay dadkii ciyaalka maanta jooga dhibka badnaanimo xakamahoodii xabaskooda dugsiyada iyo madarasooyinka meeshaas dadka waalidka iyo dadka iyo xabas dadka iyo ka ahaayeen hadii la fasaxay dhibaato badan bay dadka u keeneen waxaan jecelahay wixii wax garad ah oo meeshan dawladda joogta dadka in gacan bir lagu qabto sidii yaani loo ilaalin lahaa meelaha garoomada iyo meelahooda lagu ilaalin lahaa dadkana ayaga ulul amriga waalidka ayaga ka weyn marka waxaan codsanaynaa insha Allah bidillah al-kariim amarka waan qaadanay amarka waa dadka dambe noo yahay waayo madax meel ka hor sallallahu alayhi wa sallam ma mahada marka insha Allah bidillah al-kariim waxaan leenahay waan soo dhaweynaa insha Allah waan qaadanay waxaan faraynaa dadka muuminiinta ama islaamka ama saddexda xaraba ku nool ama mu'minka oo meel uu joogo dadka islaamka waxaan faraynaa in la soo jeedo oo diinta la akhriyo habeen iyo maalin la soo jeedo oo loo soo jeedo naftaada ma ee islaamka oo dhan ama bini aadanka oo dhan cudurku waa cudur xune inuu ilaahay ka bixiyo sababtaas oo ah ninkii kufriyay oo rabbigiis ku kufriyay asaga ku kufriyay laakiin waxa la isku imaada bini aadannimada sida dhaqaatiirta ay dadka oo dhan u wada daaweyso way diinta hadii la akhriyo meel walba way ka imaanaysaa waxaan isfaraynaa jamac iyo mufradba inaan diinta akhrisano oo u soo jeedno
dowladda xaggeed waxaan ka codsanaynaa dowladda xaggeed waxaan ka codsanaynaa aan ku akhrinayno inkastoo masaajidihii aan ku akhrinayno inkastoo masaajidihii iyo dugsida aan xirnay iyo madaaristii iyo dugsida aan ka codsanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa qur'aanka aan ku akhrisanayna qur'aanka aan ku akhrisanayna in ay noogu gargaarto in ay noogu gargaarto ijtimaacaas muxuu yahay ayna dhihin waxa kale aan ka codsanaynaa dowladdu ciyaalka hadda waxaan soo maray anigoo soo socdo 4 garoon oo dhalinyaradii laga xiray iskuulaha iyo madaarista iyo dugsidaba laga xiray ay ku ciyaarayaan ba hadda soo maray waa u dagay 2 meelood baan la soo hadlay adeer waxa la yiri waxa la sheegay ma ahay anaga ciyaar dhididka iska keen adeer iska soo caali igu yiri aniga waan wacdiyo wuxuu ilaahay igu ogaa sidii cudurku uu yahay baan u sheegay cudurkan rabbaani weeyay dheen waxaq ilaahay ka imaado cid naga celin kartana cid noo diidi karta adeer iska soo caali dawladda kolka waxaan ka codsanaynaa in ay oo aad aga codsanaynaa in ay garoomahaas aad nooga xirto meelaha kale hadda waa la xiraa la yiri oo ah shaleemooyinka ayagana nalaga xiro nalaga adkay Bashiir Gaaxnuug Artiin xeryaha Dhadhaab